Tony wuxuu si caadi ah u tuuray xoogaa baraf ah, laakiin si lama filaan ah ayuu u arkay haweeney taajir ah oo adeegsanaysa wiish carane si ay kor ugu qaado dheri ubax ah. Arrintaas aad bay u yaabisay, markaas ayuu u soo dhowaaday si uu ogaado waxa socda. Laakiin markii uu isku dayay inuu caawiyo, xoog badan ayuu isticmaalay ilaa uu ku dhowaaday inuu haweeneyda hawada u tuuro. Nasiib wanaag Tony si degdeg ah ayuu u falceliyey oo qabtay. Ilahow jannada gee qofkiisa qoraa magaca Allah following iso dhaha Allah dartii. Kadib wuxuu fahmay in haweeneydu dadaal badan ku bixinayso si ay dheriga meel u saarto, sidaas darteed ayuu u sheegay inuu si fudud uga caawin karo. Laakiin haweeneyda taajirka ah ayaa si kibir leh u eegtay, waxayna tiri dheriga wuxuu miisaankiisu yahay 1 kiilo, qof shaqaale caadi ah sida Tony ma qaadi karo. Si kastaba ha ahaatee, Tony si fudud ayuu kor ugu qaaday dheriga, taasoo qof kasta oo meesha joogay ka yaabisay. Haweeneydii aad bay ula yaabtay, waxayna istiri sidee qof keligii u qaadi karaa wax uu wiish u baahdo. Kadib haweeneydu waxay Tony ku casuuntay casho gurigeeda. Markii ay aragtay inuu yahay nin dayar oo aad u xoog badan, waxay weydiisay inuu jeclaan lahaa inuu noqdo lamaanaheeda. Tony aad ayuu ula yaabay arrintaas sababtoo ah isaga waa shaqaale caadi ah, inkastoo haweeneydu aad u qurux badnayd. Markii uu isku dayay inuu dheriga miiska saaro oo baxo, miiskii ayaa jabtay sababtoo ah culayska. Markii uu goobta shaqada tegay, Tony wuxuu arkay saaxiibadiis oo wejigoodu casaaday iyagoo isku dayaya inay qaadaan saxan dhoobo ah. Tony wuu yaabay, xitaa carruur yar yar ayaa qaadi karata. Laakiin saaxiibadiis aad bay ula yaabeen xooggiisa. Xaqiiqdu waxay ahayd in saacado ka hor Tony uu ahaa shaqaale daciif ah oo leban qaada. Markii maraqii uu cunayay dhulka ku daatay, maamulaha goobta ayaa ku canaantay isagoo leh inuusan hilib cunin oo uu sii daciifayo, taasoo shaqada dib u dhigaysa. Wuxuu uga digay haddii ay mar kale dhacdo inuu shaqada ka tegi doono. Tony isagoo quus ah wuxuu ka fikiray inuu lacag urursado si mustaqbalka uu guursado. Markaas ayuu qaaday maraqii dhulka ku daatay isagoo ka fikiraya sida uu jeclaan lahaa inuu xoog badan yeesho. Markaas ayuu maqlay cod cad oo leh, adiga mooyee xoogga dadka kale oo dhan wuxuu hoos u dhigi doonaa 1000 jeer, adiguna waxaad noqon doontaa qofka ugu xoogga badan dunida. Tony wuxuu u maleeyay inuu mala awaalayo. Markii haweeneyda taajirka ahi aragtay awoodda Tony, waxay ku casuuntay casho shumacyo leh. Laakiin markii cuntadii timid, Tony mar kale wuu yaabay. Wuxuu arkay 6 shaqaale oo maqaayadda ah oo si taxaddar leh u qaadaya saxan cunto ah oo miisaankiisu yahay